saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska koonfur Afrika howlgal ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen ayay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan qaybo ka mid ah burcad faldhac ka geysatay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Cape Town ee dalka koonfur Afrika ilaa 4 goobood oo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato ajnabi ah oo ka soo jeeday wadamada Chinese, India iyo Bangladesh oo laga qaatay lacag ku dhow ilaa 25,000 goobtiiba iyo waliba kombiyuutarro iyo telefoonno ayay ciidamada booliiska waxa lagu wargeliyay in burcad falkaasi geysatay isugu jireen Soomaali, Tanzania iyo Malawi sida laga dheehanayay luqadaha ay ku hadlayeen waqtigii ay goobahaasi ay u dhacayeen. Subaxnimadii saaka ay ciidamada booliiska waxay ku soo kalaxeen xaafadaha Soomaalidu ay ku badan tahay ee deegaanada Western Cape iyagoo durbadiiba jirdil u geysanayay qof waliba lagu tuhumayay in uu waqtigaasi qayb ka lahaa dhici loo geystay goobahaasi ganacsiga. 3 Soomaali ah iyo 2 Tanzaniyan ay ciidamada u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan iyagoo bartamaha magaalada ku garaacay isla markaana laga dheehanayay askari waliba ciilka ballaaran oo uu qabo shakhsiga ajnabiga ah ee falka dhaca ka geysanaya gudaha koonfur Afrika. Intii uu soconayay howlgalka ciidamada booliiska ayaa telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV waxay sawirro kala duwan la heshay booliiska oo jirdil u geysanaya dadkii ay ku tuhmeen inay qayb ka ahaayeen burcadii falka dhaca ka geysatay gudaha koonfur Afrika. saacado kadib ayay ciidamada booliiska waxa ay ka kaxaysteen halkaasi ilaa iyo 4 qofood oo Soomaali ah iyo tiro kale oo ajnabi ah oo aan la qiyaasi karin iyagoo ku amrayay qof waliba in uusan soo marin goobaha ay falka howlgalka ay ka sameynayeen iyagoo ku amrayay qof waliba inuu ka laabto goobihii ay howlgalka ka sameynayeen saakay. waa markii labaad oo ciidamada booliiska howlgallo noocan oo kale ay ka fuliyaan goobaha Soomaalidu ay ku badan tahay ee deegaanka Western Cape iyadoo aan loogeyn sababaha ku qasbaya Soomaalida iyagoo qaxooti ku ah dalka in falal noocan oo kale ay ka geystaan gudaha koonfur Afrika. mar waliba ka filo telefishinka Home Cable in uu kula socodsiiyo wixii warar ay ku soo kordha jaaliyadaha Soomaaliyeed ku dhaqan gudaha koonfur Afrika. Cabdullaahi Balwan, Home Cable TV, magaalada Cape Town.